السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسودو أفل أكاديمي. ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu walaalkiini Taamir Moxamed. ugu horeyn waxaan aad ugu cudur daaranayaa maqnaanshaha aadka u dheera ee aan halkan ka maqnaa. kadib intaas, maanta halkan waxaan kugu bilaabayaa course cusub. Course-kan maanta waxaan ku baranaynaa software lagu magacaabo Adobe Photoshop. waa maxay software-kan Adobe Photoshop? Software-kan Adobe Photoshop waa mid ka mid ah saddexda software ee graphic design-ka. waxa meesha imaanayso su'aal ah, waa maxay graphic design-ka? Graphic design-ka waa qofka inuu barto sida loo sameeyo xayeysiinada ganacsiga ee sawirada ah, sida qofka inuu sameeyo boorarka ganacsi aad aragto ee dukaamada ku dhagan, sidoo kale qofka inuu sameeyo ama uu nashqadeeyo logooyinka, business kaarada, ID kaarada iyo markaa wixii halmaala oo intaa isla ah. aan u soo laabano software-ka Photoshop. Software-kan Photoshop asna wuxuu qabtaa shaqadii aan soo sheegnay mid la mid ah, laakiin waxa uu dheeraad ah inaad ku qurxin karto sawiradaada shakhsiyadeed ama sawiro kaleba. sidoo kale Photoshop waxaad ku samayn kartaa sawiradan halkan kuu soo saari doono iyo sawiro kaleba. waxaan alle weydiisanaynaa in aan markaan dhammayno course-kan dhammaanteen aan awoodi doonno in aan sameyno waxyaalihii aan ka soo hadalnay. course-kan aan hadda bilaabaynana wuxuu u socon doonaa si step step ah, oo maalinba waxaan qaadanaynaa cashir. isbuuc walba course-kan waxaan soo gudbin doonaa 3 maalin ay ka mid tahay maalinta Sabtida, maalinta Isniinta iyo maalinta Arbacada. insha Allah course-kan waxaan qaadanaynaa 3daas maalin aan sheegay. sidoo kale course-ka wuxuu soo gali doonaa ama waxaad heli doontaa 1 saac subaxnimo. cashirkeeni koowaad ee course-ka Photoshop waxaan ku qaadanaynaa sida loola soo dego Adobe Photoshop iyo sida markaa laptop-kaaga aad ugu soo degsan lahayd ama installation aad ugu samayn lahayd. ku soo dhawow cashirkeeni maanta. si aan usoo degsano software-ka Adobe Photoshop waxaan u baahannahay browser. sida loola soo dego browser-ka waxaan kusoo qaadanay cashir hore. ugu horeyn waxaan aadaynaa browser-ka ugu wanaagsan ee aan hore usoo sheegnay ee Chrome browser ama Chrome Google. markii aan soo furano Chrome Google-ka waxaan qaybta wax laga baaro ama qaybta wax laga raadiyo aan ku qoraynaa website lagu magacaabo Get Into Busy. aan ku qeexo sababta aan u aadayno website-kan. software-kan lagu magacaabo Adobe Photoshop waxaa laga leeyahay sida magaciisa aad ka fahmaysidba ama waxaa leh shirkad lagu magacaabo Adobe. shirkadaas lagu magacaabo Adobe. software-kan waxay iibisaa qiimo lacag ah, maadaama anaga aan nahay dad beginner ah ama aan ku shaqaysan hadeertan, waxaan rabnaa in aan ku helno si free ah ama si bilaash ah software-kaas. waxaa jira website-yo la soo dhigo ama lagu soo daawaco software-daas iyagoo bilaash ah. website-yadaas waxaa ka mid ah website-kan maanta ku tusi doono ee lagu magacaabo Get Into Busy. aan gudagalna cashirkeena. qaybtan wax laga raadiyo ayaa waxaan ku qoraynaa Get Into Busy. then markaa qorno Get Into Busy waxaa inoo soo baxaya wejiga tan aad arkaysid. waxaan ku dhufanaynaa linkigan ugu horeeyo. sida arkaysid hadeertan wuxuu ina geeyay website-ka saxda ah ee Get Into Busy. halkan ayaan waxaan ku qoraynaa software-ka aan raadinayno magaciisa. waxaan rabnaa in aan soo degsano Adobe Photoshop. then markaa searching gareeno Adobe Photoshop, software-kan wuxuu leeyahay versiono kala duwan. versionadaasna waxay soo baxeen sanado kala duwan sida 2015, 16, 17, 18 ilaa sanadkan maanta joogno ee 2023. haddaba halkan ayaan waxaan raacinaynaa 2023 maadaama aan u baahannahay 2023. kadib waxaan taawanaynaa halkan ay ku qoran tahay go. wuxuu inoo bilaabayaa inuu raadiyo software-ka Adobe Photoshop 2023. sida arkaysid waa kan software-ka Adobe Photoshop 2023. waxaa la soo boostgareeyay 3 bil ka hor. markay sida tan ay inoo soo baxdo waxaan taawanaynaa halkan aad arkaysid ama linkigan ayaan taawanaynaa. then markaan taawano linkigaas wuxuu ina keenayaa weji kale oo sida tan ah. then wejigaa markuu ina keeno adiga akhriso faahfaahintan waa waxyaalaha markaan ka hadlayo software-ka iyo markaa waxyaalo kale. waxa ugu muhiimsan ee inaad akhriso loo baahan yahay waa halkan. sababtoo ah markaan ku leeyahay aad ugu muhiimsan waa inaad fiirisaa operating system-ka uu ku shaqeynayo. wuxuu ku shaqeynayaa Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 markaa ilaa Windows 10. wuxuu ku sheegaa inuu ku shaqeynayo dhammaan noocyada Windows-ka. sidoo kale halkan wuxuu kugu sheegayaa RAM-ka ugu yar ee lagu adeegsan karo inuu yahay RAM 4. sidoo kale wuxuu kugu sheegayaa hard disk-ka inuu ka banaanaado ugu yaraan 3 GB. sidoo kale halkan wuxuu kugu qeexayaa processor-ka lagu adeegsan karo inuu yahay Intel Double Core iyo wixii ka badan. haddaba waa maxay macluumaadkan halkan ku qoran? sidee ayaan u ogaan karaa laptop-kayga macluumaadka ku saabsan?
okay ugu horeyn waxaan aadaynaa desktopka kadib halkan ay ku qoran tahay this pc ayaan waxaan ku leeyahay right click kadib waxaan taabanayaa properties wuxuu si toos inoo geynayaa settingka then halkan ayuu inoo soo saarayaa macluumaadkii hadda aan arkaynay sida arkaysid device nameka ayuu inoo sheegayaa processorka aan adeegsanayno hadaayo waxaa ku qornaa meesha intel double core midka aan anaga adeegsanaynona waa markaa 7 core aad ayaa loogu isticmaali karaa sidoo kale halkan waxaad ka arkaysaa raamka markaa kusoo degsan ama raamka aad adeegsanaysid sida arkaysid raamka ugu yar ee lagu isticmaali karo wuxuu ahaa 4 midkanna waa 8 oo waa lagu isticmaali karaa system typekan halkan ayaa ka eegaysaa oo inuu yahay 64 bit inuu yahay 32 bit qaabkaad hadda u imaaday qaab ka duwan ayaan ku tusayaa si aad meeshan u imaado waxaad samayn kartaa waddo kale inaad aado qaybta wax laga raadiyo kadibna aad ku qorto about your pc then asaga kuu soo dhamaystir doono kadib waxaad aadaysaa halkan about your pc open ayaad leedahay then sida arkaysid wuxuu inagu soo celinayaa meeshii hadda aan markaa joognay marka macluumaadkan akhri hadduu laptopkaaga ka yar yahay intii uu sheegay isku day markaa inaad raadsato version kale oo markaa laptopkaaga anfacayo keliya waxaad bedelaysaa aan ku laabano websiteka keliya waxaad bedelaysaa numberka ama meeshu hadda uu ka yahay 2023 waxaad ka dhiganaysaa sanadihii hore waxaa laga yaabaa sanadihii hore inay aad ugu duwan yihiin marka device-ka aad ku isticmaali karto haddaba aan gudagalno markaa sida loola soo dego softwareka waxaan u degaynaa hoos kadib waxaan raadinaynaa halkan ay ku qoran tahay download then halkan ayaan click ku siinaynaa markii aan click ku siino halkaas sida arkaysid wuxuu inoo soo furayaa wejigan kale waan yara sugaynaa oo wuxuu ina leeyahay iska sug intuu ku markaa ku sameynayo ama intuu ku dhameynayo sida arkaysid haddeertaan wuxuu bilaabay downloadingkii halkan waxaa kaaga muuqda looga yar loogadan yar haddaad arki weysid ogow laptopkaaga kuma jiro WinRAR soo marka sidaad u hesho WinRAR waxaad daawataa cashirkii hore ee aan soo qaadanay adigoo markaa dib ugu raacayo linkiga hoose ee descriptionka sida arkaysid marka downloadingka wuxuu qaadanayaa waqti aad u dheer oo markaa ku dhawaad saacado ah marka videoga waa iska baawus garaynaya waxaan isku soo laabanaynaa markuu inoo soo dego sida arkaysid installationki waa inoo dhameeyey marka waxaan aadaynaa halka uu inoo geeyey waxaan soo furaynaa marka this pc-ga ama waxaan soo furaynaa file explorerka then waxaan aadaynaa download maadaama uu yahay shay aan soo degsanay marka sida arkaysid adeertaan halkan ayuu inagu jiraa filekii ama wixii aan soo degsanay soo waxaan ku sameynaynaa inaan ka furno raarkan aan u bedelno folder raarka iyo marka sida loo furfuro iyo waxyaalo badan waxaan kusoo qaadanay cashirkan ama coursekan cashirkii ka horeeyey waxaan ku dhigayaa qaybta hoose descriptionka halkaas ka booqo soo marka filekan ayaan ka furaynaa raarka ku xiran then waxaan leenahay extract then wuxuu ku weydiinayaa password xasuusno passwordka get into pc waa 223 marka file walba soo degsatid wuxuu leeyahay passwordkaasna waa 223 soo waxaan sugaynaa marka intuu extractiga ka sameynayo sida arkaysid marka extractiga oo inoo dhameeyey waxaan fiirinaynaa marka folderkii oo inoo sameeyey folderka sida arkaysid waxaa ku jira Adobe Photoshop then markaa soo furto folderka sidan ayaa ku soo baxayo qaybtan waa readme isku day mar walba readme-ga inaad akhriso wuxuu ku faahfaahinayaa qaabka aad u sameysan lahayd marka soo hadda waxaan sameynaynaa setup-kana wuxuu eg yahay wejigan aad arkaysid soo waxaan leeyahay click then yes ayaad leedahay weji yar ayaa ku soo baxayo laga yaabo wejigaas inuu screen recording u qaban yes markaa soo dhahda kadib wejigaas yar ayaa ku soo baxay wuxuu ku weydiinayaa meesha aad geyn lahayd soo meeshiisa iskaga dhaaf kadib waxaad leedahay next yacni wuxuu idhahayaa wuu kusoo degsan yahay folderkan anyway yani qaab walba wuu kugu soo dejiyaa folderkan soo waxaan leeyahay yes maadaama aniga oo iisoo degsan yahay adiga ma laga yaabo inuu waxaan kugu soo baxo then waxaan leeyahay next kadib wuxuu leeyahay marka halkan desktopka ma kugu sameeyaa shortcut wuxuu yahay cashir hore aan ugu soo hadalnay soo waxaan leenahay next meeshaan haddaad rabtid waa iska dhaafi kartaa haddaad rabtid intig waa saaran kartaa keliya wuxuu ka caawinayaa in desktopkan lagu soo saaro iconka photoshopka sida softwareadan ay u saaran yihiin camal then waxaan leeyahay next kadibna waxaan leeyahay install sida arkaysid marka wuxuu bilaabayaa installationkii waxaan sugaynaa marka intuu kasoo degayo wuxuu qaadanayaa waqti yar waxay ku xiran tahay marka speedka uu leeyahay laptopkaaga waan iska sugaynaa marka sida arkaysid haddeertaan waa inoo dhameeyey installationkii soo waxaad leedahay finish soo markaad finish dhahdo kadib sida arkaysid haddeertaan halkan wuxuu inoo keenay marka ama shortcut ugu sameeyey Adobe Photoshop 2023 adiga dad halkan ka weysid isku day inaad ka raadiso marka qaybtan wax laga raadiyo adigoo ku qoraya Adobe Photoshop 2023 halkaan ku joojinaynaa cashirka koowaad ee Adobe Photoshop
waxaynu balanaa cashirkan kiisi xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.